bilaabayaa magaca Eebe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneedba leh. Mahad idilkeeda weyne u sugnaatay. Nabadgelyo korkiina ha ahaato iyo naxariista Eebe. Wacnaan idilkiinba meel walbo dunida ka joogtaan. U soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono arrimaha warbaahinta. Tacriifta warbaahineed waxay dhahaan waa camaliyad looga dan leeyahay in lagu faafiyo akhbaarta dhabta ah iyo xaqiiqooyinka jira iyadoo loogu daneynayo bulshaweynta caalamka ku nool iyo in ummadda aragtidooda guud kor loogu qaado. Haddaba tacriiftaasi ma tahay mid sax ah oo dhab ah oo ay adeegsadaan warbaahinada jiro ama warbaahinada ka jira maanta caalamka, iyada oo aynu wada ogsoonahay warbaahinada caalamka ugu afka dheer uguna saameynta badan dunida in ay yihiin warbaahinada reer galbeedka, siiba kuwa Mareykanka iyo Yurub ayagoo ku fushado maslaxadooda iyo danahooda gaarka ah. Halhees ama qodobna ka dhigtay waa xurriyatul qowl, in qofka sida uu doono u soo gudbin karo waxa uu aaminsan yahay ama uu rabo, asaga oo aanan ka baqaynin in la handado, la xiro ama la dilo. Diinteena suuban ayaana ah midda keliya ee nafartay xurriyatul qowlka, waana sababta aan uga khayr badnaanay ummadaha kale. Qaala tacaala: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. wuxuu yiri eebaweyne, waxaad tihiin ummadda u khayroon ee loo soo bixiyey dadka. Waxaad fartaan wanaagga, waxaadna ka reebtaan xumaanta, waxaadna rumaysaan Eebe. hadday rumeeyaan ahlu kitaabka xaqa, saasaa u khayroonaan lahayd. waana waxba kama jiraan xurriyatul qowlka ee sheeganayaan ayaga. qof walbana uma banaano inuu iska yiraahdo wuxuu doono oo afkiisa soo qabto hadduusan waalleen oo uusan ahayn qof marfuucal qalam ah, sababtoo ah hadalka wuxuu leeyahay aadaab iyo xad loogu talagalay in uusan dhaafin. warbaahintuna waxa ay ka koobnaataa jaraa'idyo ama joornaalo, idaacado ama raadiyoyo, TV ama telefishinno hadba sida ay dadku u yaqaanaan, iyo weliba baraha bulshada sida Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Fiverr, QQ, Snapchat, Skype, Pinterest, Zoom, Telegram iyo kuwo kaloo badan. waxaan inta badan ka hadli doonaa oo aan xoogga saari doonaa warbaahinta ay ku wada xiriiraan bulshaweynta caalamka ee loo yaqaano social media. tacriif ahaana social media ama warbaahinta baraha bulshada waa meel ay ku wada xiriiraan bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay kusoo bandhigi karaan fikirkooda, kana heli karaan xog kasta oo lagu soo gudbiyo, hadday ahaan lahayd wax wanaagsan ama wax xun labaduba. sidoo kalena waa meel ay kaga falcelin karaan ra'yigooda, taladooda iyo fikirkooduba. waana aalado ku dhisan tiknoolajiyad, naqshad ahaana waa mid ku salaysan internetka. waxa ayna siisaa si degdeg ah weliba qofka isticmaalo waxyaabo ay ka mid yihiin macluumaadka shakhsiyadeed ee qofka, dokumentariyo, fiidiyoyo, sawirro, codad, wadahadal toos ah, maqal ama muuqaalba leh. waana kolka aad isticmaalaysid kombiyuutar, telefoonada casriga ah, tablet, iPad iyo wixii la halmaalo. warbaahinta baraha bulshada ee caalamka ka jiro waxaa isticmaasho in ka badan 3.8 bilyan oo dad ah. waana goob isbebedelaysa waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo, kuna soo kordhayaan marba marka ka dambeyso kuwo kaloo cusub sida Twitter Spaces, Instagram Reels iyo midka hadda nawaale ee loo yaqaan Clubhouse ee qol walba la isla galay. qiyaasta ay qiyaasayaan 2023 waxa ay leeyihiin wadanka Mareykanka tirada dadka isticmaalayaasha ee baraha bulshada waxa uu gaari doonaa 257 milyan oo qof, kana dhignaanayso 80% in ka badan dadka Mareykanka in ay yihiin dad isticmaalo baraha bulshada. halka Soomaaliyana tirokoob ay sameeyeen data reportal ay ku qiyaaseen Soomaaliya guud ahaan dadkeeda in ay yihiin 16.12 milyan bishii Janaayo ee sanadkan 2021. waxayna dhaheen tirada dadka Soomaaliyeed waxaa ku korortay 457,000 oo qof intii u dhaxaysay 2020 ilaa Janaayo 2021. waxay kaloo sheegeen 50.1% dadka ku nool Soomaaliya in ay yihiin dumar, halka 49.9% dadkeedu ay rag iyo weliba sidoo kale 46% dadka Soomaaliyeed in ay ku nool yihiin magaalooyinka, halka 53.6% ay ku nool yihiin dhulka miyiga ah. tirakoobka inta isticmaasho baraha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ayadana ah nimaano waxay Soomaaliya ku qiyaaseen dadka isticmaalo baraha bulshada in ay yihiin 2.10 milyan oo qof bishii Janaayo 2021. tirada dadka adeegsada baraha bulshada ee Soomaaliya ayaa korortay ilaa iyo 500,000
oo qof intii u dhaxaysay sanadkii 2020 ilaa Janaayo 2021. Waxa ayna u dhigantaa 13% in ay yihiin dadka isticmaalo baraha bulshada. Kulli waa wax la wada qiyaasay, balse Ilaahay ayaa inooga og wax waliba. Waxaanse la yaabay in dadka Soomaaliyeed ee isticmaalo baraha bulshada oo wadankii joogo ay ka bateen dadka noo dhashay ee nagu soo biiray. Dadka ku soo biiray baraha bulshada 2020 ilaa Janaayo 2021 waxay noqdeen 500,000 oo qof. Dadka noo dhashay ee nagu soo biiray 2020 ilaa iyo Janaayo 2021 waxay noqdeen 457,000 oo qof. Anigu kulley ma rumaysanin, balse la yaab ayay igu noqotay tirakoobkaasi hadduuba yahay mid sax ah. Kol haddii la yiri guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkii inta isticmaasho baraha bulshada waa 2.10 milyan, aan bal ku biirino 1 milyan qiyaas ahaan dadka Soomaaliyeed ee kale ee ku nool qurbaha in ay isticmaalaan baraha bulshada oo aan ka dhigno guud ahaan 3.10 milyan oo qof. 3.10kaas milyan ee Soomaaliyeed ayaa ka saameyn badan 244 milyan ee Mareykanka ah ee isticmaasho baraha bulshada. Ukaadi kaabe oo sidee? Soomaalida 100% waa dad muslimiin ah, dhaqankooda, diintooda iyo afkooduna yahay hal, halka dadyoga kale ee adduunka ku nool nagaga duwan yihiin intaba, hadday ahaan lahayd dhaqanka, diinta iyo afkaba. Iyada oo ay sidaasi tahay ayaa Soomaalideena inta badan waxay u adeegsadaan baraha bulshada si khaldan oo weliba aad u xun, kana fog shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. Run ahaantiina ma jecli in aan si fiican u walwalaaqo, balse waxaan tilmaami doonaa dhowr waxyaabood. 1. Soomaalida qaar ayaa si qalafsan oo weliba aad u caadifad badan ugu adeegsato ama ugu isticmaasho baraha bulshada cudurka nadaashaday ee loo yaqaano qabyaaladda, heer weliba aan gaarsiinay qowmiyada kale oo aanan Soomaali ahayn in aan u barno qabiiladeena si aysan u aqoonin dadkeena qaar. Dhanka siyaasadana waxa ay ka noqotay caado aanan ceeb ahayn in loo adeegsado siyaasadda dalka iyo dowladnimadii iyo dhulkiiba qaab qabyaaladaysan oo weliba bareer cad ah oo aanan gabasho iyo xishoodna lahayn, waana nagu ceeb xaqiiqatan. 2. In maalin walba dumarkeenii Soomaaliyeed oo haybadda iyo sharaftaba lahaa lagu qaawiyo baraha bulshada, laguna bahdilo, loogana oysiiyo qiimihii iyo karaamadii ay bulshadooda ku lahaayeen hoos loogu dhigay, walow ay jiraan kuwa yar oo dhaqan rogmay oo ayaga iskood u bareeray xumaantooda. 3. In aakhiradii lagu bedeshay lacag iyo adduun yar oo aanan lagu wareerin sidii lagu heli lahaa, oo ah in baraha bulshada lagu soo gudbiyo waxyaabo yaqyaqsi leh oo aanan ka fiirsasho lahayn, kana fog diinteena iyo dhaqankeena suuban, si ay u helaan oo keliya subscribe iyo views badan si uu u kala kaco page-kooda ama channel-kooda. Qaala tacaala: ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun. Wuxuu yiri eebbaweyne, kuwa jecel inay ku faafto xumaantu, kuwa rumeeyey xaqa, waxaa u sugnaatay cadaab daran adduun iyo aakhiraba. Eebbana waa ogyahay, idinkuna ma ogidin. 4. In dad qaar oo inaga mid ah ay u adeegsadaan baraha bulshada qaab isbaaro oo mooryaannimo ah, laguna xagxagto bulshada qayb ka mid ah, hadday ahaan lahaayeen ganacsato amaba shakhsiyaad kale, ayagoo weliba loogu handadayo in laga hayo xogo ama sirar haddaysan bixinin lacagna ay shaacin doonaan xogta iyo siraha iyo ceebaha ay ka hayaan dadkaasi iyo wixii la mid ah. Waana midda aadka u khatarta badan uguna beenta badan. Qaala tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. Wuxuu yiri eebbaweyne, kuwa xaqa rumeeyow, hadduu idinla yimaado faasiq war hubsada, si aydan dad u dhibin ogaansho la'aan, markaasna aad ka shalaydaan waxaad fasheen. Xadiiskii Abaa Hureyre uu ka wariyey suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waatuu ahaa: dadka waxaa ku imaan doonto sanooyin khiyaanooyinka badan doonaan, waxaana la rumaysan doonaa beenaalaha, waxaana la beenin doonaa runlowga, waxaana la aamini doonaa khaa'inka, waxaana khaa'in la odhan doonaa aaminka, waxaana hadli doona dadka ruwaybidada la yiraahdo. Markaabay nebiga ku yiraahdeen, waa maxay ruwaybidada? Nebigana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri, waa mid liito oo arrimaha waaweyn ee dadka ka warramayo. Waxaana makhraati ka wada nahay in aynu aragno dad badan oo ka warramaya arrimo qoys oo dhexdooda ahaatay, qoysas badanna ayba ku dumeen guryahoodii liajli dadkaas liito ee uu nebiga inoo sheegay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Haddaba 4taasi qodob iyo in kaloo lamid ahna nooma bannaano hadday
hadday ahaan lahayd xag diin, xag dhaqan iyo akhlaaq iyo xag bini'aadanimo intaba. waana sababta aan ooga saameyn badnaanayno bulshaweynta kale ee adduunka ku nool haddaynan ku dhaqmin diinteena suuban, dhaqankeena iyo qiyamkeena akhlaaqeed. warbaahinta baraha bulshada waa shabakad ay isticmaalaan dhammaan qaybaha bulshada oo idil, hadday ahaan lahaayeen siyaasiyiinta, ardayda, macallimiinta, ganacsatada, culimada, shaqaalaha kala duwan, dadka rayidka ah iyo wixii la mid ah. waana sakiin laba af leh, waxa ayna ku xiran tahay qof waliba iyo sida uu u isticmaalo, kheyr ama shar. wax kastana waxa ay leeyihiin nacfi iyo lur labaduba. waxa aynu tilmaami doonaa kolka hore faa'iidada warbaahinta ay u leedahay bulshada. kow, waxaad kala xiriiri faamilkaada, qaraabadaada iyo asxaabtaada, mid kuu dhow iyo mid kaa fog intaba. labo, waxaad ka barani kartaa cilmi iyo aqoon, mid diimeed iyo mid maadi ah labaduba. saddex, waxaad ka heli xogag iyo akhbaar muhiim ah oo aad u baahnayd in aad hesho ama aad ogaato. afar, waxaad sare ugu qaadi kartaa ganacsigaaga dhaqaaleed, suuqgeyn iyo soo iibsashana waad ku isticmaali kartaa baraha bulshada. shan, waxaad ka heli kartaa fursado shaqo oo lagu soo bandhigay. lix, waxaa lagu caawiyaa dad u baahnaay in la garab istaago, lagana caawiyo baahida markaasi haysata. waxaa kaloo lagu aruuriyaa sadaqado badan sida dhisida masaajidyo, dugsiyo qur'aan, iskuulo, ceelal iyo wixii la mid ah. toddobo, waxay gacan ka geysataa dhisida bulshooyinka. hal tusaale aan soo qaato. dunidani waxaa ka jira diimo fara badan, balse diinta saxda ah ay tahay diinta islaamka. inna diina cinda allaahi alislaam. sidaasi darteed ayay wadaadaha diimaha ku yeeshaan dood wadaag dhexdooda ah sida kristanka iyo islaamka. in badanna waynu aragnay Peace TV-ga uu leeyahay Dr. Zakir Naik oo bulshooyin badan uu sabab ugu noqday in ay fahmaan qaataana diinta xaqa ah ee islaamka. waana faa'iidada ugu weyn midaas. aan haddana tirina qaar ka mid ah faa'iida darrada warbaahinta ay u leedahay bulshada. kow, ilmaha yaryar ee aanan qaan gaarin oo adeegsata baraha bulshada una adeegsadaan waxyaabaha xunxun ee khaldan, sidoo kalena wuxuu halis geliyaa waxbarashadooda. labo, in la jabsado akoonkaada aad ku leedahay baraha bulshada loona dhaco xogtaada shakhsiyadeed iyo arrimahaagii kuu gaarka ahay. waana caqabad ka dhalan karto in la faafiyo xogtaada shakhsiyadeed iyo arrimahaagii kuu gaarka ahay, ha ahaato mid hantiyadeed, sawiro, fiidiyoyo, qoraallo, codod iyo wixii la halmaalo. saddex, in qofka uu ka dhigto sidii maandooriye oo kale, balwadna uu noqdo ilaa heer uu gaarsiiyo in uuba bulshada ka dhex saaro, waqti badan uu ooga baxo oo uu kaga faa'iideysan lahay howlo badan oo waxqabad leh ama mid waxbarasho ha ahaato. afar, in loo adeegsado dhagar, khiyaano, hagar, xiqdi, xaasidnimo iyo wixii la mid ah. shan, sumcadaada ayaa ku dhiman karto baraha bulshada, sababtoo ah waxaa laga gudbin karaa warbixino been abuur ah oo saameyn ku yeelan karta bulshada, amba adiga naftirkaada ayaa u bareerayo waxyaabaha sumcadda iyo sharafta burburiyo in aad la wadaagto bulshada. lix, dhanka caafimaadkana saameyn xoogan ayuu ku yeeshaa qofka sida xad dhaafka ah u isticmaalo baraha bulshada. toddoba, waxay soo jiidataa waxyaabaha xunxun sida dhilaysiga, qawanaanta, daroogooyinka, maandooriyaasha iyo wixii la mid ah. kol haddaynu ogaanay warbaahintu waxa ay tahay, faa'iidadeeda iyo faa'iida darradeedana aynu aragnay, ma isweydiisay su-aashani ah waa maxay ujeedada iyo danaha ugu weyn ee laga leeyahay intaasoo warbaahineed in dunida lagu soo kordhiyo? runtii waana su-aal aad u muhiim ah ee ii ogolow in aan dhagahaaga ku shubo hal ama labo ama saddex amaba afar in aan kuugu soo koobo. kow, in la bedelo caqiidadaada. laba, in lagula lahaado maskaxdaada, caqligaada iyo weliba waqtigaaga qaaliga ah. saddex, in la dhaqan rogo dhaqankaada suuban ee soo jireen loona bedelo kuwa reer galbeedka. afar, in lagu tuso cunooyinkaada iyo wax soo saarkaaga in ay yihiin wax liita oo uu ka sarreeyo midka ayaga ay soo saartaan, weliba lagu baro sida loo karsado loona cuno cunooyinkoodaasi, ayagoo wax cajab ah oo aanan la arag amaba la heli karin kaaga dhigayo cunooyinkooda lagu sameeyo McDonald's-ka, Macs-yada, Burger King-yada iyo wixii la mid ah. galeydaada, haruurkaaga, digirtaadana ay yihiin kuwa liito oo uu ka fiican yahay qamadiga laga soo saaro USA. shan, in ay ku ilaashadaan danahooda dhaqaale ayagoo ka sameynayo baraha bulshada lacago waali ah oo weliba xad dhaaf ah iyo arrimo kaloo badan. guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena, dhegaystaha daawadaha qiimiga badano, haddaad tahay isticmaalaha baraha bulshada amaba aad tahay warbaahiye, noqo qof caadil ah oo runsheeg ah, weliba
mas-uul ah dhowrana sharaftiisa diineed iyo sharafta ummadiisuba. Subxaana rabbika rabbil cizzati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.